saaxiibkiisa ayuu wacay wuxuuna ku yiri hooyaday waa xanuunsan tahay aniguna ma haysto qiimaha daawada wuxuu ugu jawaabay saaxiibkiis dib ma lahan saaxiib waxaad soo wacdaa salaada casir kadib ballantii markii la gaaray buu wacay laakiin nasiib darro telefoonkiisu waa uu xidhnaa marar badan buu ku celceliyay telefoonki laakiin telefoonka saaxiibkiisa waa uu dansanaa haddana aad buu u wacay ilaa uu ka quustay wuxuu bilaabay inuu raadiyo qof amaahiya qiimaha daawada hooyadiis laakiin nasiib darro cid amaahisa ma helin wuxuu dareemay in adduunka oo dhan uu ku ciriiroobay wuxuuna aad uga murugooday jirada hooyadiis iyo inuusan caawin karin balse murugadiisa ugu weyn waxay ahayd sida uu saaxiibkiisa u hoojiyay wuxuu garan waayay waxa uu sameeyo wuxuu dib ugu noqday gurigii asagoo aad u niyad jabsan wuxuu arkay hooyadiis oo huruda oo nasinyo wajigeeda ka muuqda oo ay agtaalo bac ay daawo ku jidho farxad iyo amakaag baa kala jiirtay wuxuu u tegay walaashis wuxuuna weydiiyey qofka daawada keenay waxay ku tiri saaxiibkaaga ayaa yimid asagaana soo keenay daawada wax yar ka hor ayuuna halkan ka tagay farxad buu la qoslay ilmo ayaana indhihiisa ku soo istaagay gurigii ayuu ka soo orday asagoo raadinaya saaxiibkiis ilaa uu ka arkay wuxuu ku yiri waan ku soo wacayay ilaa galabtii telefoonkaagana waa xirnaa maxaa kugu dhacay saaxiibkiisa ayaa ugu jawaabay waan iibiyey telefoonkaygii waxaana lacagtiisa ku soo gaday daawada hooyo Allahu Akbar saaxiibtinimada ma aha liiska dheer ee dadka kuugu jira telefoonkaaga ama buugaaga ama facebookaaga balse waa dadka kula garab taagan taageero waqtiyada aad tabar daran tahay fallan haddaad dhammaysatay sheer garee oo gaarsii asxaabtaada soo qor Allahu Akbar